السلام عليكم كورونا أما عابقون كسو كردها دونك وحاسك عدو صعدا سوق يدي سامي العالمك يدو دد بدن الدكامة كسوق هذينيان كيد عنتو داو كلي وراضها مسقولا كطاي يوحيابها لسكويلالي يا أفكا لغو حرتو كودهان عالمك وحاك تاغن عبسو صاوي عذر كي كورونا أما كوفيد 19 هذا بكوغو دور قضب ومهمة sidee fayraskani ku dhici karaa covid-19 wuxuu sida hargabka ku fidaa qufaaciyeen isagoo marka aad qaado wuxuu fayrasku ku noolaanayaa kuna turmayaa nudayaasha hawo-mareenka dheecaanada kasoo dhiiqa nudayaashaas sida candhuufta diifka iyo xaalku waxay wada sidaan fayraska marka uu qofku qufaco hindhiso ama xitaa hadlo waxay hawada ku cayaacaya dhibco yaryar oo maaragtay kuwaasoo fayraska xambaarsan haddii aadan qofka u dhoweyn halis kuma jirtid maadaama ay dhibcaha yaryari keliya gaari karaan ilaa 7 cagood oo quraamo ku dhowaad 3 tilaabo qofkee u dhiman karaa cudurka waxay culimada caafimaadku isku raaceen inay muhiim tahay da'da qofka iyo cudurrada u horay qofku qabay tusaale covid-19 caruurta ku dhaco xitaa inta badan kama soo muuqdo dalka Shiinaha oo ku cudurkani la degay wali lama sheegin caruur iyo da'yar cudurka u dhimatay walaaca ugu weynse wuxuu ka joogaa inay caruurtu cudurka u gudbiyaan waaweynka taasina waa sababta ay maamulka iskuuladu u go'aansanayaan inay iskuulada xidhaan marka la eego xogta waaxda kaaminta cudurrada ee Shiinaha heerka geerida cudurku wuxuu u dhexeeyaa 0.2 iyo 100 ilaa 0.4 boqolkiiba marka ay timaado da'da u dhaxaysa 10 ilaa 50 jirada balse markasta oo ay da'du weynaato way sii dallacmaysaa boqolleydu tusaale konto meeyada heerka geeridu waa 1.3 boqolkiiba 60 meeyaduna waa 3.6 boqolkiiba 70 meeyada waa 8 boqolkiiba ku dhan 80 meeyaduna waa 1.8 boqolkiiba boqolleydu waxay la kordhaysaa da'da gaar ahaan haddii uu qofku qabo cudurro hore sida kansarka dhiig karka sonkorowga cudurrada macaanka sanbabada sida qaarjeexa iyo wixii lamid ah xaaladda qofku waa sii xumaanayaan haddii uu qof kasta qaado cudurka covid-19 miyaan weji qariska xirtaa goobahay dadweynuhu isku imaadaan may daraasaadku waxay muujinayaan in ay taasi runtii ka ilaalinayaan inuu caabuqa kugu dhaco dadka qaar baa in aan wejigaas taabanin balse dad kale ayaa hubiyey inuu qofku in badan wejigiisa taabanayo sababta qoray tahay inaad weji ama sanqarisana ugu xirtana waxaa keenaya marka aad adigu tahay qofka cudurka qaba si aad uga badbaadiso inta kale dhanka karantiimayska iyo iskarantiilka uu qofku isku hoosaamayo talada rasmiga ahi waxay tahay hadda haddii aad booqatay gobolka Hubei oo ah midka looga arrimiyo Wuhan oo ah barbilowga uu cudurkani ka yimid 14 maalmood ee lasoo dhaafay ama aad tagtay Iran waqooyiga Talyaaniga Jigo iyo Janjo ee South Korea tan iyo 19 Febraayo waa inaad wacdaa hay'adaha daryeelka caafimaadka xitaa haddii aanad isku arag astaamaha cudurka covid-19 waxaa lagu fari karaa inaad iskantarisho 14 maalmood ah fadlan raac tilmaamahan coronavirus 5 arrimood waad baahan tahay inaad ogaato waxaa sahanka lagu xirto iyo sanka lagu xirto sida maaska waxaa suuragal ah inaad aragto dad sanka iyo afka u xiran yahay balse caddayn badan looma hayo inay ka caawinayso in xanuunka ay ka badbaadaan waxaa taas uga wacan inay maradaas tabacsan tahay ma qarinayso indhaha muddana lama xirnaan karo waa in si joogto ah la isaga bedelo kadib marka lagu dhidido waa haddii aad doonayso in si wanaagsan ay ku caawiyaan maas horta dad ku dhigto waxaa sanka lagu xidhay maaska la dhaco aad ayaa ku caawinaya laakiin inaad ka dhaxatirta loo fiican maydho si aad isaga ilaaliso coronavirus hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka hadashay waxaa muhiimka sanka iyo afka qabso markaad hindhisayso
waxaad adeegsataa tiish ama gacantaada. Tiishkaas isla markiiba waxaad ku dartaa qashin daboolan, kadib gacmaha si joogto ah isaga dhaq saabuun ama dawooyinka kale ee nadaafadda. Ka fogow dadka aad ku hindhisayso ama qufacayso ugu yaraan 1 mitir coronavirus. Haddaba waxaad inaad kala ogaato waxaa fiican cunida toonta, luqluqashada, in sanka aad dawo ku dhaqato, in saliidda sisinta aad marto wareegga sankaaga. Muddo dhoweyd waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay inay u dhashay cunug yar oo ah 30 jir, da'da 30. Markii uu dhashay ayaa ku dhacay caabuqan coronavirus, markiiba waa uu dhintay. Marka corona uu aad u xawaaganaya qofka awoodiisu ay daciiftay ama weyn ama dadka sida waaweyn ee awood darradu hayso iyo dadka yaryar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.